AIDS is the most severe form HIV infection. Waxa la yidhahdaa infectionka AIDS-ku inta badan waa severe weeyaan, waa most severe, waa ka ugu badan ee sameeya HIV infectionka sameeya. Marka HIV infectionskuna waxa loo qadariyaa inuu yahay serious complicating illness, micnaha saameeya oo ama dhulka la dhacaa number of CD4 sidaynu hore kusoo sheegnay. CD4 plus lymphocytesku waxa hoos haday u dhacaan sidaynu kusoo sheegnay introduction-keenii hore, waxa meesha ka baxaya in difaaca jirka uu galo oo difaaca jirka uu galo. Waxayna ka tirsan yihiin white blood cells-ka ayay ka tirsan yihiin ama unugyada caadi jirkeena. CD4 count marka tiritaanka ama tirada uu CD4ku saameyn bay ku leedahay haday hoos u dhacaan in cudurro kusoo galaan waay. Marka haddii CD4ku waxay go'aamiyeen immune systemkaagu siduu u ilaashan yahay sida aynu arkayno ugu muuqata. Immune systemku can protecting the body from infection. Infection kasta iyo wax kasta oo severe oo damage ku dhici lahaa immune systemkaaga ayay inkastoo ka tirsan yahay laakiin immune systemka qaybta u qaabilsan weeyaan HIV. Marka haddii HIV soo galo meesha dhulka CD4 hadduu ka adkaado meesha waa lasoo qalcadda waa lasoo jeerayaa. Marka inta ugu badan dadka caafimaadka qaba waxa la yidhaha CD4koogu waxa weeyaan waa 800 ilaa 1300 cells baa ku jira dhiigooga oo microliter marka lagu cabirayaa. Haddii intaa 800 dee ay hoos u soo dhacdo shaki baa meesha gelaya maxaa u dhacay waa isweydiinaya. Haddii hoos decrease uu ku dhaco badan oo dee aan laga sugayn marka qofka waa in shaybaar loo diro. Waay CD4ku marka muhiimad uu leeyahay waxa weeyaan waa any infection oo gali lahaa dibadda inooga iman lahaa inuu naga difaaco. Laakiin haddii meesha jirin waxa faa'iideysanaya wax kasta oo jirka ku cadow ah. Waay stages buu markaa maraa HIV-gu clinical stages baynu u qaybin doonaa calaamadaynu ku qaybin doonaa. Stage-ka koowaad waa qofku waa bilaa calaamad waa ninkii hore usoo sheegnay waa asymptomatic wax la yidhaahdo wax calaamadaha ma leh. Inta badanna wuxuu qofku yeelanayaa waa ninkii hore soo sheegnay inuu qanjidhadiisu u bararaan ama wax la yidhaahdo lymphadenopathy uu yeelanayo. Qanjidhadiisa kuwa gacmaha iyo kuwa qoortu ay waaweynaadaan. Clinical stage 2 marka la leeyahayna wuxuu qofku noqonayaa unexplained weight loss. Qofku wuxuu yeelanayaa muxuu ahaayey weightkiisa hoos u dhacaya. Weightkiisu macnaheedu waxa weeyaan in miisaankiisu hoos u dhaco. Qofku inta badan ku badnaanaya respiratory tract infectionska ku badanaya infectionska neefsashada tract neefsashada ama neefmarinka oo ku dhaca infectionska inta badan ku dhaca. Qofku mararka qaarkood uu cuno xanuun buu iska yeelanaya infection xanuun waa ku dhacaya autism dhiga xanuun baa mararka qaarkood lagu arkayaa. Waxaa lagu arkayaa in duumihii hawada qaarkood infection ku dhacay waxaasoo dhan baa lagu arkayaa. Waxaa ku dhacaya kale herpes zoster viruska la yidhaahdo oo isaguna markaa mid ka mid ah fayrasyada sababana ka mid ah. Waay sidoo kale qowlalada qofka iska dilaacaya ulceration qofku yeelanaya oral ulceration waxaasoo dhan waxay u yeelanayaa qofku. Mararka qaarkood qofku wax lagu arki karaa inuu ciidkiisu iska dhiigo kala iyadoo calaamadihii kale oo qofku uu yeelan karaa ka shakiin tusaale ahaan kale calaamadaha marka laga shakiyo waxa la yiraahdaa stomatitis syndrome yani qofka ardaygu markuu wax baranayo kale wuxuu leeyahay qowlalada ka yara xanuunaan malaha u shakiya laakiin kuwani waa in la cadeeyaa marka qofka la cadeeyo calaamadaha lagu sheegi karaa. Waay marka mararka qaarkood dermatitis yani infection buu ku yeelanayaa skinkii oo mararka qaarkood hoos u dhacaya. Marka waxyaabahan oo kale mararka qaarkood waxa dhici karta ta ugu dambeysa waxay dhici kartaa fungal infection ama infection inuu ku dhaco ama onychomycosis uu dhaco oo cidiyuhu kale infection inta badan ay ku dhacaan taasoo kale qofku uu yeelan karaa. Calaamadaha waa stage-kii labaad. Stage saddexaad baa jira markaa oo jiro qofku inuu shuban yeesho. Shuban dee unexplained macnaha aan la sharixi karin oo in badan macnaha marka la sheegayo wax qariib ah oo aad u adag. Waxaa jira kale qofku inuu yeelanayo xumad googa ay soo kale xumad googa ay soo yeelanayo
severe weight loss baa ku dhacaya inuu hoos u dhaco sidii aynu ka hor kusoo sheegnay weightka qofku inuu hoos u dhaco. Candidiasis buu yeelanayaa qofka candidihii qofka oral candidiasis buu yeelanayaa ama vaginal candidiasis buu yeelanaya labadaba uu yeelanayaa. Candidiasis waxaa la yidhahdaa waa funguska keena waa cudurrada ugu badan ee qofka ku dhaca qofka HIV-ga ku dhaca. Inta badan waxaad arkaysaa qofka oo afkiisa wax timo kalaaya uu ku yeeshay. Pulmonary tuberculosis waa caan tahay weeyaan weli stageka ugu dambeeya tan waa ugu caan pulmonary tuberculosis. Pulmonary infectionsku waa ku caan. Pulmonary tuberculosiska waxaa laga yaabaaba inay igu raacdo oo dhaxantii baashii la oran jiray. Waxaan oo dhani waa mid ka mid ah pneumonia ku dhici kartaa, meningitiska, bacteremia, waxa la yidhahdo pneumocystis, bone marrow infection waxaasoo dhan way ku wada dhacayaan qofka bini'aadanka ay ku dhacay waxaan la yidhaahdo HIV/AIDS. Waxaan oo dhani waa calaamadahani markaa qofku wax ku soo baxaya inuu stageka saddexaad qofku maro ama stageka saddexaad qofku dhaco. Clinical stageska afraad waxa uu qofku yeelanayaa waxa la yidhaahdo pneumocystic pneumonia waa caan oofta qofka AIDS-ka ku dhacda waxa la yidhahdo pneumocystic pneumonia la yidhahdaa. Haddii lagu weydiiyo pneumocystic pneumonia waa maxay waa oofta ku dhacda qofkan HIV-ga uu qabo ama infected-ka ah. Pneumoniada ugu badan weeyaan weliba pneumoniadaas waa pneumonia recurrent ah oo soo noqnoqota oo inta badan waxaa lagu baaraa radiology baa lagu baaraa minaha waa bacteria inta badan pneumonia oofta inta badan soo noqnoqota ay ugu badan tahay. Oofta qofka ku dhacda ama waxa la yidhaahdaa ugu caansan pneumocystic weeyaan. Herpes simplex viruska inta badan chronic buu qofka ku noqdaa ama qofka qaba inuu ka sheekeynayo qofka qaba chronic buu ku noqdaa in badan buu hayaa waxa laga yaabaa 1 month inuu qofka hayo. Waana mid ka mid ah kuwa ay keenaan ama cudurrada caanka ku ah viruska uu keeno. Esophageal candidiasis baa jira isaguna oo cunaha candidaha ku dhaca waa fungus uu keeno isaguna Soomaalida inkastoo ka yeelin laakiin fungus baa keena oo cudur inta badan caan ku ah qofku markuu immunity-giisa hoos u dhaco. Tuberculosis xumadii extrapulmonary tuberculosis iyadana waxaa ku dhacaysa dhaxantii la oran jiray tuberculosiska qofku waxa ku dhacay cancer marka halkan ka soo gelina Kaposi carcinoma wax la yiraahdo iyo cancerka noocaas ku dhacaya. Waxa laga yaabaa central nervous system-kiisa inta toxoplasmosis ku dhaco waxa la yiraahdaa inta badan dumarku aad ugu badan yahay toxoplasmosisku waana cudur inta badan ku dhaca hooyooyinka uurka leh ayuu caan ku yahay. Marka waa isaguna waa mid ka mid ah waxyaabaha qofku uu yeelanayo. Waxa la cudurka bisadaha ayaa inta badan la yiraahdaa marka waxaan soo galnay treatment of HIV/AIDS haddaynu wax ka yara tagno waqtigeena nagu sameeyaan kasoo gudun baan ka siinaya. Treatment of HIV/AIDS miyuu jiraa wax dawo ah? No ma jiro laakiin waxaa jira wax la yiraahdo supplementary treatment ama qofka lagu taageero oo kale lagu taageero in qofka immunity ka soo kala way. No specific vaccination waxa horta dawo ay ma jirto laakiin waxa la yiraahdo ART baa jirta oo loo soo qaabsado anti-retroviral therapy. Horta HIV-ga waxaa sababa wax la yiraahdo anti-retroviral virus la yiraahdo retroviral oo group ka mid ah groupada viruska. Marka qaar ka yar hortaga oo tusaale ahaan xaddigii lowdka ahaa xaddigii ku jiray virus ee jirka ku jiray in hoos loo dhigo. Sidoo kale wuxuu ka hortagayo dawooyinka ka hortagaan heartku ka hortagaan ama anti-retroviral drugs ka hortagaan ama therapy ka hortagaan opportunity infectionska kuwa ka faa'iideystayaasha bacteriyadu waa ka faa'iideysta maalintu immunity-gaaga hoos u dhaco dhulka ayay la galaysaa ama dagaal bay kula galaysaa. kuwaasi markaa mature role waxyaabaha ugu waaweyn ee artigu aad tirto ama anti-retroviral drugs ay tiraan waxa weeyaan inay ka hortagaan preventive origins infections inay ka hortagaan oo markaa kor u qaaday immunity-gaaga hadduu oo kor u yara qaad waxa laga yaabaa inuu wax iska difaaco way marka waxaan hoos u dhigayaan control HIV replication-ka uu samaynayo HIV-gu ama HIV AIDS-ku samaynayo ayuu ka hortagaan
waxaanay balance gareeyaan ZD4 celsiuska balance macnaha waxay ka qayb qaateen in CD4 maxay la soo saaro haddii meesha laga saaro ama la yareeyo loadkii viruska waxaa dhacaysa in koritaan uu sameeyo immune system oo iska yara difaaco of HIV maxaa lagaga hortagi karaa HIV-ga inta badan waxaa la yidhahdaa stretchid baa la qaataa la yidhahdo ABCD stretchidani markaa waxay sheegaysaa in qodobka ugu horeeya abstinences wax la yidhaahdo abstinenceku waxa weeyaan in qofku totally-ba waxa uu iskaga tago tusaale ahaan in aad siluusiso oo aad isku taxal micnaha tusaale ahaan oo kale inuu qofku aanu tusaale ahaan oran hebel baan ka qaadaya shakiga inuu ka tago oo abstinences kelmaddan waxaa la yidhahdaa qofku inuu ka tago wax uu addict gareeyey tusaale ahaan oo kale be faithful inuu totally ba joojiyo be faithful waxaa la yidhahdaa faithful yani inuu qofku iskaga tago waxyaabaha xaaraanta ah inuu iskaga tago ama sexual ha noqoto ama waxyaabaha kale ha noqote don't share needle and syringe ha share garaynin ama yaan lagugu mudin waxa la yidhaahdo needleka iyo syringeska la furay always isticmaal new blades sakiimadaha cusub syringeska cusub waxaad isticmaashaa waxyaabaha lagu taskareeyo bloodka ama dhiigga dad macaan qabto kale wax cusub isticmaal sidoo kalena qofku markaa waa in tusaale ahaan waxyaaba laga hortago HIV-ga tusaale ahaan waa in counseling fiican la siiyo hooyadu marka ay umusho hooyada qabta marka ay musho marka ay umuleyso ka hor waa in sida ugu fiican talahaan loogu siiyaa inaan naaska shaqsin waayo waniga hore kusoo dhiganay waxyaabihii hooyada vertical transmission yani hooyada waxay ku gudbin jirtay marka hooyada kale talo waa in la siiyaa inay naaska jarto waxyaabaha ka jarto oo caana loo doono ilmaha yar markay cusub tahay naas nuujinayso kale marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin maanta intaasuu ku dhan yahay cashirkeenii